barnaamijkeennii ma ogtahay maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa marada ugu da'da weyn adduunka korkiisa saaran inta la og yahay. Cilmi baarayaasha aasaarta qadiimiga ee archaeology-ga ayaa xaqiijiyay inay heleen maradii ugu da'da weynayd adduunka, iyagoo baaritaano ka waday xabaalaha faraaciintii hore ee dalka Masar, meel 50 kiiloomitir u jirta caasimadda waddankaasi ee Qaahira oo lagu magacaabo Tarakhan. Maradaasi oo baaritaano lagu sameeyay ayaa ugu dambeyntii lagu ogaaday inay da'deedu jirto muddo ku siman 5,000 sano ka hor taariikhda miilaadiga.